magaalada Addis Ababa shalayto waxa ku geeriyooday Xasan Dalab Xaaji Muuse oo xaaskiisu ay gubtay sidoo kale dabkii ka kacay arintaasi oo iyadna ay isgubtay Hodan Cabdi Jaamac oo iyadna ahayd xaaskii Xasan Dalab oo labadooduba ay geeriyooday madoonana inaan qisadooda dhabta ah ku soo koobo mala awaal fara badan iyo waxyaabo fara badan oo geerida iyo arinta laga muujinayna aan midowga ka saarno marka hore waa ayo maxay isku khilaafeen waa maxay arinta gaarsiisay ilaa heerkan inay maanta qoyskaasi masiibadaas ku dhacdo ugu horeyn ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore waxaan doonayaa inaan ku fahansiiyo labadaba horta waxay ahayd laba qof oo reer Burca barnaamijka share gare meel fog gaarsii labadooduba waxay reer Burco Xasan Dalab Xaaji Muuse hooyadiina waxay ahayd ina weydaar baa la oran jiray waa nin isagu horta waxa weeye waa nin habaryoonisa oo ka sii ah beesha Muuse Cabdale hooyadiina waxa weeyaan ina weydaar ama deeqa weydaar bay inta badan dadku yaqaanaan ina weydaarna ama hooyadiina waxay ahayd habar jeclo oo reer Benin ah Hodan Cabdi Jaamac waxa dhalay nin ciyaartay ahaa oo la oran jiray Cabdi Jaamac Faarax oo reer Burco inta badan way yaqaanaan ciyaartay hore ahaa 2016 Hargeysa ku geeriyooday Ilaahay naxariisto Cabdi Jaamac Faarax oo ciyaartay hore ahaa ninkaasi ayaa dhalay wuxuu ahaa nin habar jeclaa oo aadan madow ah markii ay isguursadeen Xasan Dalab baa joogay Holland isaga kaxeeyay waxayna dhowr iyo 10 sano u dambeeyay wada deganaayeen Holland magaalada la yiraahdo Dilif waxay isku dhaleen 7 caruur oo ta ugu yar ay ahayd 7 bilood markii intii ayna geeriyoon ka horna waxay u lahayd uur haddaba intaynan gelin qaabka isku gubeen iyo waxyaabahaas balan dib ugu yara noqdo qisadoodii hore waxaad aragteen baraha bulshada iyadoo lagu wareejinayo fiidiyoyada Xasan Dalab oo kaga cabanayo Hodan Ilaahay naxariistee Xasan Dalab waxa uu markii hore lagu xiray Holland iyagoo khilaafka qoyskoodu aad u soo kacay iyadoo inantoodii ama inantii ugu weyneyd oo la oran jiray Caasha oo ahayd inantii markaa masiibadu ka bilaabantay leeyri gurigaad ka saartay isagoo isna ku eedeeyay inay hooyadii ka saartay ama inanta hooyada Hodan ay ka saartay ugu dambeyn khilaafkii ka dhexdhacay ay dawladda Holland waxay cadeysay inay inantaasi istishay depressionkii kaga dhacay inkastoo isagu aaminsanaa in la dilay ugu dambeyntii dalku u soo qaaday wadankuna ku aasay 7 caruur ahaa buu haddana uu la soo cararay wuxuu la yimid magaalada Hargeysa wuxuuna sheegay in gabadha laga qabto dacwad fara badan buu ka gudbiyay tolkeed buu uga dacwooday arrimahaas oo dhan khilaafka qoyska heerka gaarsiisan waxba laga soo qaaday kullina inta badan waxaan aragnaa gabadh cabanaysa oo dadku dhageystaan laakiin nin cabanaya inta badan aad looma dhageysto arrintii qaabku doonaa ku eedeeyo tolkeed buu eedeeyay gudoo ku raacsan inta qoyskooda waxyaabahaas laakiin Ilaahay naxariistay aad u arrintii waxba laga qaban way halka markay arrintu marayso haddana Xasan Dalab wuxuu sheegay inaanu rabin inuu dalkii ku noqdo booliis bay u soo kaxaysatay gurigii baa lagu garaacay baasaboorradii ka haysatay iyadu waxay doonaysay mar walba rabtay inay laabtaan oo Holland ku noolaadaan halka uu isaguna rabay maadaama Holland ay inaan parasite kaga noqotay mid kalena ay kaga geeriyootay waabiyo ka qaaday in dalka ay joogaan isaga caruurtiisuba waxay ka bartaan iyadna baasaboorradii bay gacanta ku dhigtay waxay doonaysay in Holland ay ku noolaadaan Holland nolosheeda iyo noloshan ay isla fahmi waayeen ugu dambeyn khilaafkoodu ilaa iyo Holland intay joogeen mar walba uu soo bixi jiray markii inta la yimid ugu dambeyn iyada ayaa Hodan gubtay magaalada Hargeysa ay ku gubtay 10 cisho markii dabkii ka kacay marka laba qaab baa la leeyahay ilaa imkaan aad loo kala cadeyn waxa la leeyahay markii gubtay ayuu soo orday isna uu qabsaday kadib uu dabkii iyadana qabsaday waxa kale oo la leeyahay markii ay gubtay ay iyadna dabka isqabadsiisay kadib
labadaaba waa la leeyahay laakiin waxa la hubaa ilaa imika in ay hodan iyadu dabka qabadsiisay ilaahay u naxariisto qaabka uu hodan dabku ku soo gaaray ilaa imika ma kala cadda labadaas oo way yimid inanku wuxuu ka gubtay horta 10 cishay labadooduba dhakhtarka Hargeysa yaaleen way ladnayd iyadu intii hore oo dabku markay iyada noqoto waxa uu ka gaaray meelo aad u guban oo wuxuu ka gaaray lugaha iyo inta kale sare laakiin aad u gaadhin meelo fara badan 10 casho iska ladnay way hadlasay caadi bay iska ahayd isaga dabku wuxuu ka gaaray baa leeyahay sababada beerka madaxa indhaha intaas oo dhanba waxba kama arkayn Ethiopia markaa daraato loo qaaday isla habeen horena uu ku geeriyooday barta iyana shalay subax ay geeriyootay oo dabkii arintii uu ka soo gaadhay bay u geeriyootay 10 cishana marka hore way yaaleen magaalada Hargeysa arintan kadib imika baraha bulshada ay xoog ugu faaftay iyaga oo markaa aaraa kala duwan dadku waxay u duceeyaan laakiin qaabka dabka iyo waxyaabahana siyaabo kala duwan bay u sameeyaan xaqiiqada warkuna waa sida ehelkooga iyo cidda ay yihiin iyo dhammaan waa sida waa dad reer Soomaaliland oo tolay haayeen ugu horreyn waxaan ka codsanaa horta inaad u duceyso mar labaadna waxaan doonaynaa in mashaakilkani inta badan wuxuu ka kacayo qoyskana aynu ku tusaale qaadanaa dadyoga qarbaha inta badan qoysaska caruurta tirada badan dhala sunuuga mushkilada way ku dhacdaa sababtoo ah waxa keena caruurtu inta badan marka ay yar yihiin tusaale 8 caruur 9 caruur 7 caruur ay isku xigxigaan sanad kale weeyeen 2 sano waxa ilmaha fiican mar hadad qurba joogtayna dhowr sano u dhaxaysiiso labada hor hadii isku xigaanadu dhaxaysiiso ilaa 4 sano yaani waqti ay kala qalaan wax lagu siinayaa ma aha sida wadankii ilmaha qoysku ay guriga iyo ka ku xiga iyo madrasada iyo iskuulku waa dad hal diin leh afluqadku waa hal meel waxba kama ilaalinaysa ilmahaaga cuntum baad siinaysaa aabbuuna uu soo shaqeynaa wala baxaya laakiin marka aad qurba joogto sida maaha kan kugu xiga waxa laga yaabaa inuu hinduus yahay kan yahay kristan kan yahay wax kale iskuulkii wax kale lagu soo dhigayo kan kale haddaanad ilmahaaga focus saarin oonad ka warhayn oonad gacanta ku hayn cid kale uu gacan gelayaa depression baa ilmihii ku dhacay qoyskii way ku wada dul hadlayaan aabihii hadduu shaqo karto hooyadii kuma filnaan karta intaasoo caruura waxa laga yaabaa hooyadii inay shaqo tagto aabihiina shaqo tago noloshii ay isku keen qaban weydo haddii idea waxyaabaha Yurub oo kale aad qaadatana mar walba lagu control oo aad maaragtay waxoogiga cayda aad istiraahdo waxa soo dhan wax ka daran dhakhtarkii ballan buu ku dhigayaa waxa laga yaabaa iskuulkii ballan ku dhigo waxa laga yaabaa 5 caruur in 5 ballamood iskuuloodii lagu kala dhigo dhakhtarkii ballaman lagu kala dhigo qolooyinkii socialka waxyaabahaas ku ururaya dibadna hadda waxa lagu oranayaa iskuulka intaas oo ballamood qoladii markay ku qabsato markaasi wax kala ma aha gaala horta ilmaha iskama soo raadsato kuma tawajar garanayso ilmaha iskama qaadato waxa way mushkilad aad u sameeyso marka dadka Soomaalida ay caruuraha badan ku dhala qurbaha waxa fiican in wadankii u guuraan ama aabaho kale in qurbaha ka shaqeeya caruurtaasi la geeyo wadankii diinta iyo dhaqanka la baro sidii doonta haataba khilaafaadka waxa keenay aad baan uga dhargsanahay Soomaalida khibrad badan bay ka qaadatay tanna waxay la mid tahay waxyaabahaas oo ka soo bilaabatay barnaamijkana share gareey meel fog gaarsi aynu u duceyno ilaahay naxariisto jannaha ka waraabiyo caruurtaana xawil khayr qaba ilaahay ha siiyo bedel khayr qaba si fiican ha u koriyo aad iyo aad baan idin salaamay